hay-adda xasaaradda caalamka ayaa ka digtay muranka qaraar ee u dhaxeeya dowladaha qariijka Carabeed inuu Qatar weyn ku yahay uuna weeqayo deganashada Soomaaliya. hay-adda waxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay joojiyaan kala jeedashada dhinacyada isku haya muranka qariijka ka taagan, sababtoo ah taasi waxay Qatar geli kartaa qalalaasaha isa soo taraya ee Soomaaliya gudaheeda iyo sidoo kale caasimadda iyo Somaliland. markii Sacuudiga iyo Imaradka ay xiriirka diblomaasi u jireen Qadar sanad ka hor, arrinka waxay dhibaato ku keentay Soomaaliya, taas oo xiriir la leh labada dhinac ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay-adda xasaaradda caalamka. ururada xasaanadda caalamka waxay ku baaqayaan in wada hadalla ay dhex maraan dowladda Soomaaliya iyo Imaradka, asigoo intaasi ku daray in xasilooni darro dheeraad ah ay ka dhacayso Soomaaliya ayna ka faa'iideysan karaan kooxaha jihaadiga ee ka jira Soomaaliya. Abshkur Maxamed Xasan, wararka Saab TV, magaalada Muqdisho.